laba hadaf ay badanaa waalidku leeyihiin markay ilmaha barbaarinayaan. labada hadaf ugu waaweyn waxa weeyaan to survive iyo to thrive. Thriving iyo surviving. oo midna tahay oon socodsiin maalinta ama daqiiqada sidaad uga gudubtaa haddaad doonto ku qayli ilmaha dil qol ku soo xidh been u sheeg waa socodsiin iyo thriving oo ah sidaad uga faa'iidaysataa inaad fursadaasi mushkiladaasi haba ku dhibta adiga inaad uga aragto chance aad ilmaha ku kabcinaysa maskaxdiisa intellectually emotionally maskax ahaan iyo dareen ahaan aad ku kabcinaysid. ilaahna quraanka way keenugu la meel badan waxa laga yaabaa waxyaabaha qaar inaad karaasataan laakiin uu khayr idinku jiro wax badan oo ilmaha dibsano xaalad badan runtii fursad badan baa ku jirta ilmaha ku kabcinayno. tusaale waxa kamid ah ilmo markay islaynayaan waxa laga yaabaa for surviving inaad labada ilmo laba qol ku soo kala xidhid mid kasta gaarkiisa ugu qaylisin surviving. laakiin for thriving haddaad rabto inaad kabciso fursadda uga faa'iidaysato intaad u timaadid ayaad leedahay maxaa isku haysaan dabeetana waxaad baraysaa sida loo wada hadlo sida wax loo sheer garayo iyaga laftooda eegaysa xataa mararka qaarkood markaad aragto inay heshiinayaan aad ignor garaynaysaa markaad aragto inay arrinkooda u yara culus soo dhexgelaysaa marka fursad baad u arkaysaa aad xirfad ku baraysid skill dagaalka islaynayeen halka marka taas waa thriving marka waad kabcinaysaa.